Assalaamu calaykum, waa Som Crypto oo mar kale idiin soo jeedinaya macluumaadka aad uga barateen. Maantana waxaan ku eegi doonaa macluumaadkeena guud ahaan suuqa stock marketka iyo cryptocurrency-ga. Sida aad la socotiinba, cudur maaragtay aad iyo aad khatar u ah ayaa helay adduunyada. Insha Allahna waxaan rajeynayaa Ilaahay inuu naga badbaadiyo. Intaa haddaan ugu gudubno, suuqyada caalamka oo stocga sida aan anaga u naqaano forex aa la yidhahdaa, laakiin stock market aa la yidhahdaa. Suuqda caalamiga ah waa arkaysiin boqolkiiba 32 ayay hoos u dhaceen. Waa shirkado jira oo yacni ganacsiyo waaweyn haysta. Marka shirkadihii Mareykanka waa kuwan. Meeshana waa waddanka Norway. Shirkadahooda iyagana aad iyo aad ay u khasaareen. Marka maaragtay wax iska jira waay, khasaarada ma ahan wax oo cryptocurrency keliya ku kooban. Haddii aan taas uga gudubnane, suuqii stock marketka waxaa insha Allah geli doonaa cryptocurrency-ga oo aan iyadana eegi doonaa. Caadi ahaan cryptocurrency-ga wax isbeddela ma lahan, oo waa wax aan u baranay inay dhacaan, inay soo kacaan, inay kor aadaanba. Laakiin khasaarada hadda ugu weyn waxaa keentay stock marketka ayaa hoos u dhacay. Marka taas ayaa keentay labadii maalin oo ugu dambeysay ama week ugu dambeeyay inay hoos u dhacaan. Marka aniga waxaan u arkaa inay jaanis tahay, fursad ay tahay. Waxaan xasuustaa sanadkii hore 7 bilood ka hor waxaan sameeyey videogan oo aan idhi 10% oo faa'iido ah. Waxaan xasuustaa coin-kan aan ka iibsaday 1000 xabo. 1000 xabo ayaan ka iibsaday. Maalinta aan videogan sameynay waxay 7 bilood ka hor 11kii July ayay ahayd. Maantana coin-kan haddaan eegno, xataa asoo suuqa uu khasaare yahay, waa kaasaa waxaan ku iibsaday 1.08 ayaan ku iibsaday. 1000 xabo ayaan iibsaday. $180 ayaa iga baxday. Maantana asoo suuqa 12% hoos u dhacay oo khasaare ah. Sida arkaysiinba 1000 xabo haddii aan ku dhufanno 2.52 investmentigayga haddii laga jaro waxayd 1080, almost $1440 loo qeybiyey 7 bilood haddaan niraahno, bishiiba $200 aan ka faa'iiday. bil kasta $200 aan ka faa'iiday. Marka waxba ha u arkina, koley aniga waxaan u arkaa maalmaha horta wuu sii dhacaa suuqa oo bishan labadan bilood soo socota aad iyo aad ayuu u dhici doonaa. Marka insha Allah waxaan rajeeyaa idinkana inaad stop loss ku xiratiin oo aadan isku daynina suuqa. Suuqan khasaare iyo faa'iido wuu leeyahay, laakiin mar walba stop loss-ka haddii aad wax iibsatane mar walba waxaa isku daydaa inaad yacni 10% kala baxdo. $1000 markaa geliso lacagtaadii ee 1,100 noqoto, boqolka keliya kala bax, 900 kunka u sii daa. Mar walba lafaha kala bax. Insha Allahna wixii macluumaad waa iisoo gudbi doonaa. Barnaamij aad iyo aad noo anfici doonana waa soo wadaa insha Allah oo dhammaan dadka Soomaaliyeed anfici doona. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaahayna naga badbaadiyo cudurka halista dilaaga. Assalaamu calaykum.